muxuu yahay ceelka cadaabta ee ku yaala dalka Yemen? meel aad uga durugsan dhulka lama deegaanka ee Yemen ee bariga fog ee dalka Yemen waxaa ku yaala god la rumaysan yahay inuu yahay mid meesha ku yili malaayiin sano ka hor. kuwa ka agdhow aaga godku ku yaalo oo loogu magac daray ceelka Barhuud waxay rumaysan yihiin in qof kasta oo ka soo dhawaata aaga godka naarta la nuugayo iyadoo qofna aysan ka baxsanaynin haddii ay u soo dhawaato. godku wuxuu aad ugu soo caanbaxay mala awaalka dadweynuhu ay ka sameeyeen sida inuu degan yahay gunta hoose ee godka jinniga. ceelka Barhuud waxa uu ku yaalaa lama deegaanka Yemen oo u dhow soodinta Cumaan ay la leeyihiin dalkaasi, waxaana sidoo kale uu ku yaalaa gobolka Al-Mahra. balac ahaan ayaa lagu tilmaamay godkaasi inuu jeedo 100 fiid, waxaana loo malaynayaa inuu hoos u qodan yahay 330 fiid, laakiin kuwa qaar ayaa ku doodaya inuu hoos uga dheer yahay 220 fiid. mana jirto qof weligiis hoos u gaaray gunta hoose ee ceelka naarta. shaqaale ka socda wakaaladda wararka AFP ayaa dhawaan dul maray godka iyagoo isticmaalayay diyaaradda daroniska, waxaana ay qabteen muuqaalo aad u cajiib ah oo ay qabatay diyaaradda daroonka oo dadka ka daasoona. si kastaba ha noqotee, diyaaradda daroonka ee aan duuliyaha lahayn ay si toos ah ugu dul haabaysay ceelka naarta. haddana waxaa adkeyd in si toos ah loo arko gunta hoose ee godka. dadka ceelka ku agdhow waxay inta badan ay ka hadlaan in ceelka uu aad u urayo. Amar Hashim Maxamed Cusmaan oo ka shaqeynayay xerada ciidanka ee u dhow ceelka naarta ayaa qoray urtan, waxaana uu tilmaamay in urkeeda aan loo dulqaadan karin. wax badan lagama arki karo ceelka daraftiisa maadaama iftiinka qoraxda uusan si aad u gaarin gunta hoose ee ceelka. waxaa laga soo xigtay wakaaladda wararka AFP sawirro ay qaadaysay ayaa sheegay in aad u adag tahay in sawirro laga qabto gunta hoose ee ceelka. sida ay tahayna, inkastoo ceelkani naarta uu aad u soo urayo, haddana noocyada kala duwan ee shimbiraha aadka u faraha badan ayaa lagu arkaa iyagoo duulaya kana baxaya ceelka aadka u urka badan. cimilada qaybta Yemen waa kuwa aad u kulul caadi ahaan oo qalalan xilliyada lagu jiro xagaaga, inkastoo ay dhici karto in onkodyo ay ka dhacaan buuraha u dhow. guud ahaan gobolku ma helo roobab aad u fara badan oo heerkiisu aad u sarreeyo. sheekooyinka jinka ee isla dhexmaraan dadka deegaanka ayaa aad ugu badan, iyadoo la sheego in qarniyo badan uu ceelka degan yihiin jinka. dad badan oo ka agdhow xitaa ma jecla inay ka hadlaan arrimaha godka, iska badda inay soo booqdaan iyagoo ka baqaya in jinka la sheegayo uu meesha degan yahay. dalkaasi tan iyo sanadkii 2014 waxaa ka socday dagaallo u dhaxeeya dowladda Yemen iyo sidoo kale fallaagada Xuutiyiinta. qaramada midoobay ayaana sheegtay in Yemen ay la ildaran tahay dhibaatooyinka bini'aadanimo ee adduunka ugu xun, iyadoo 10,000 la dilay, malaayiin kalena ay barakaceen. 3 meelood waddankaasi gargaarka bini'aadanimo ma gaarin, waxaana dadka ku nool gobollada baadiyaha ay la dhibaatoonayaan cunno yari iyo sidoo kale dhibaatooyin ku aadan xagga nolosha. haddaba daawada si aad ula socotay warbixintan iyo sidoo kale warbixino kale aad u xiiso badan oo ku saabsan arrimaha caalamka oo idiin soo wadno, fadlan like saar siina share garay page-ka Mukhtaar Cabdi Ciise Simacade si asxaabtaada kale ee kugu xiran aad ula wadaagto.